بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wax ilaa imika soo baxay oo la taaban karo waan ku sheegaa ma jiro. Wuu socdaa wada hadalkii wuu socday maanta wuu istaagay markay ahayd caawa fiidkii markay ahayd maqribka hortiisii 6:15 waxaanu isku taagay markaanu aragnay qolooyinkan koonfurta labadii guddi annaguna guddida soo diyaar garowday baan ayaguna inaanay diyaar ahayn saddex cashaan jiitamayay wada hadalku wax progress ah ama horumaraan gaadho hagaagsanina ma jirin. waxaan u arkaynay inay had iyo goor jiidayaan hadalka oo aanay naftooda kalsooni ku qabin inay go'aamo gaadhaan dabad adigu atlas ma ugu dambeyn galabta 6:15 waan ku kala kacnay shirka waxaana kalifay arintii ahayd hawada mucaawanooyinka inaan la siyaasadayn ayaa waxaan anagu soo jeedinay mucaawanooyinka donorskeenu u wada tagaynaa qayb baan ka ahaanaynaa wixii la bixinayo waana qaybsanaynaa waana ogaanaynaa aanu goobjoog ka ahaan wax layna siinayo goobjoog ka noqon maysaan bay dhahaan annaka soo qaadayna wixii aanu leedihiin ama aanu damacnaan annaka idin siinayna marka qodobkaasaan isku mari weynay markaan isku mari weynayna waanu ka baxnay waxaa jira qodobo hore oo iyagana adkeeyeen oo jiitan ahaa oo ay ka mid ahayd ay soo jeediyeen qodob qura ay soo jeediyeen oo dadka isdhex galo oo ay ku jiraan siyaasiyiinta iyo dadka xilalka xamarka haya hay yimaadeen Hargeysa dabeedna kaana waanu isku diidnay markii dambe adigu chairmanka shirka ama shirgudoonka shirka oo wasiirka khaarijiga oo runtii nin aad u dadaalaya ah oo macquul ah oo isu kaya jiidayay ayaa qodobo isu kaya jiidayay sameeyo aan arintaa kaga heshiinay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad halkaas ay wax marayaan waxa kamid ah wixii aan siyaasadda iyo nabadda aan tirad ku ahayn Soomaaliland inaanu ogolnahay ee soo galaya sidii awalba ahayd ardayda dadka baac mushtariga ah iyo wixii la mid ah ee aan nabadgelyada iyo xasiloonida darro keenayna arrimo siyaasadeed oo Soomaaliland laga soo horjeedo soo safrinay wada hadaladu 6:15 bay istaageen waxaana dadaal ku jirta dawladda aan u nahay martida ee Djibouti madaxweynaheeda iyo wasiirkeeda khaarijiga dareen baan imaka helayaa inay jecel yihiin inay isku soo celiyaan waana suurta gashaan inaan isku soo noqono wasiir intaanad warbaahinta la hadal oo aanad warbaahinta la wadaagin ma jira xal kale oo la keenay labadiina dhawaciisa soo dhawaasho waan ku sheegayo madaxweynaha ayaa dadaal ku jira Djibouti aan martida u nahay iyo wasiirkiisa khaarijiga oo asaguna jeergareynaya dhexdhexaadiskana wada qoladii European Union iyo Mareykankuna way nala joogaan marka runtii qoladan Djibouti u daayeen dadaalka isu jiidka ah inay hirgashaan waa suuragal